كمال waxaad bal inooga sheegaysaa maadaama aad gudoomiye xisbiga wadajir aad ahayd oo Cabdiraxmaan Cabshakuurna xisbiga wadajir madaxda ugu sareyso ka tirsan yahay arintan dhacday sidee u aragteen ask xisbi aan waxay marka koowaad aan tacsi u diro shaqaalaha xisbiga iyo dadkii volunteerska noo ahaa oo xisbiga ku sugnaa oo meesha ku dhintay waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janno uu siiyo waxaa meeshaas ku dishay gacan ka gardaran oo ka xaq daran waxaan kaloo u baryayaa inuu ilaahay bogsiiyo dadkii ku dhaawacmay oo uu ka mid yahay hogaamiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame iyo howlwadeenno kale marka labaad run ahaantii warkaas wuxuu ahaa weerar oo axmaqnimo ah weerar oo barbarignimo ah weerar dad civilian oo xafiis siyaasadeed iyo hoy isugu jira oo wax qoriyaa iyo wax aan roolin runtii inay dawladda 20 teknika oo ciidankii nabadsuugida ay la soo aado run ahaantii waa dareemi kartaa waxa ay leedahay inay 20 daqiiqo oo hub iyo rasaasayn iyo maxaa la yiraahdaa jabshayaal iyo rasaas weyn oo RPG inay ku garaacdo guri oo dad civilian ay degan yihiin xisbi siyaasadeed xarun ah oo siyaasad looga shaqeeyo na waa garan kartaa xanuunka ay leedahay dhibaatada ay leedahay waa cambaareenna anaga xisbi ahaan dadkii naga dhintana waa ku tacsiinayna dadkii kalena oo meesha ku dhaawacmana waxaan leenahay bogsiimo degdeg ah urujeenna shirka jaraa'id ee dawladda Soomaaliya ay qabatay saacado ka hor waxay ku sheegtay in xiriir leedin la soo sameeyay ka hor weerarka oo aad ka dhagaadeegteen arintaas maxaa ka jira runtii horta waxaan u baahan Cabdishakuur ninka uu ahaa iyo nooca uu ahaa ma ahayn nin gambada ma ahayn nin lexlexda wuxuu ahaa nin bareer u sheegta aragtidiisa waxaan la hadlay shalay subax marka uu soo saaray xiriirlayaha dacwad oogida oo labada xildhibaan ku soo saaray dacwada ku soo oogay waxaan ku yiri hadii lidii keeno dacwad maxaa sameynaysaa wuxuu igu yiri waan tagayaa maxkamadan tagayaa waan iska difaacayaa waxaan sheegtana waan hayaa waxay walbana anigu aan ka shaqeynay waa aqaana laakiin muusan filinin marnaba in ay rasaas iyo hub iyo 20 teknika ay weerar doonto intaan shalay ka ogahay ama intaan la hadlaynin waxaas ku fakaraya ama xataa filanaya ama xataa maskaxdiisu ay batali karta ma ahayn marka waa dareemi kartaa runta xanuunka ay leedahay xalay abaarihii 12kii saqdi dhexe ayaa waxa soo weeraray ciidamada nabadsuugida waxay wadeen sidaan ku sheegay 20 teknika ah waxay albaabka xoog ku soo jiireen Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo askarta markay is arkeen asagoo dhaawacay wada kulmeen Cabdiraxmaan Cabshakuur wax warqada oo loo geeyay ma jirto oo la horgeeyay ma jirto asagoo dhaawacay kulmeen markii 30 daqiiqo xabada ay socotay kadib run ahaantiina waa dareemi kartaa qof dhaawaca marka loo sheegay waa dareemi kartaa adduunyada aan naqaano sida sharciga iyo laba nin oo civilian ah ayaa ku filan inay warqada qofka u geyso oo tiraahdo mudane waxaan ku wadnaa dacwadan waxaan rabnaa inaan soo raacdo uma baahna in 20 teknika ay ku soo raacdo uma baahna waa dareemi kartaa 20 teknika ninka loo soo diray in dawladdu inaysan al-shabaab 20 teknika u soo dirin dawladduna aysan 6 askar shabaab aysan wali ka dilin waa ogtahay dawladda hadda jirta xukuumadda hadda jirta 6 askari oo civilian oo waardiye ah oo shaqaale iyo howlwadeen xisbiga uu leeyahay ay runtii u bareereen inay dhiigooda baneystaan run ahaantiina dadkii amray oo siyaasiyiintii amartayna arrintaas waa ka jawaabi doontaa sharciga la tiigsan doonaa annagana waxaan rabnaa arrintaas inay meesha ugu dambaysa aan gaarsiino siyaasiyiintii soo amray howlwadeenadii fuliyay iyo dadkii xabada ku dhuftay oo dilay intaba waa naqaanaa magacyadoodan garanaynaa dadkii soo amraa naqaanaa qof walba naqaanaa sharciga aan la tiigsan doonaa insha Allah taala